xilkas weeye gaaro xikmad ee basiyo murti xaakim barayo waa xeelad gaaro xildi weeye hooso xananaya ciidoo la xarbiyo gumaystaha marna xabag barsheed iyo xareed roob ku shubay iyo xayskiyo gugi iyo dayrtoo xaburto xooluhu dhaleen oo xasilooni nabad iyo xamdi eebbe lagu jiro waxa xaraf ku muujee taariikh ku xaydee xaashadaha ku reebee ku xardhaaya suugaan xaashaa lilaahi xeerbeegti weeyo abwaankaan xumaan geyin wabilaahi towfiiq intaasay ku ekay idinkaa mudan asalaamu calaykum maasha xasan waxaa tahay qoraa dhowr bog qoray marka hore waxaad noo sheegtaa bugaagta qortay keebad ugu jeclay hooyada soomaalida haddii la weydiiyo caruurtaada keebaad ugu jeceshay kolleyba iyadoon kala jeclayn oo wada jecel dee 4 iyo 5 dhashay ayaa haddana mar walba ka ugu dambeey mid kasan ugu jecelay runtii dee kii aan ugu dambeyd fooshay man ugu jecelay oran la markaan waa kii aan ka qoray xaajada xasan afqallo oo sheekay bugaagta qortay khadrow run ahaantii bugaagtan imika qoray waa 3 buuge idin hor yaala ama kabarada ka muuqda oo u soo kala baxay sida ay u kala horeeyaan halka haleel oo 2004 oo aan ka qoray taariikhda iyo sooyaalka abwaanka weyn ee wadaniga ah ee Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi iyo ka labaad oo ah guri waa haween oo isna 2 sano kadib 2006 aan ka qoray kartida iyo kasmada haweenka Soomaalidu ay leeyihiin iyo doorarka ay ka qaataan nolosha dhinaca maansada iyo markaasi gacanta inta laga qabtaba waxaana ugu dambeeyay oo aan sanadkii imikeena dhaafay 2008 soo saaray buugan kale ee uu isna qoray ee uu isna ka qoray baan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye qurbaawigii weynaaye wadaniga ahaa ee qayuuriga ahaa ee xaaji axmed xasan afqalooc taariikhdiisii iyo gabayadiisii buugaasi oo aan u bixiyay hal aan tabayay isna maxamed bugaagta marka laga yimaado bugaagta Soomaaliyeed akhriid keebad ugu jeceshay run ahaantii waayadan dambe waxaa laabta la soo kacaya dareen xoog leh oo ku saabsan in dadka Soomaalidu ay wax akhriyaan isla mar ahaantaana wax qoraan bugaag badan baa timi saaxadda oo kala duwan oo nooc walba leh taariikh leh malaawaal leh suugaan leh rag iyo dumar ay qoreen run ahaantii waa kacaan weyn oo imika bilaamay haddaad taado buugeebaad ugu jeceshahay way ugu adkaanaysaa laakiin waxa qurux badnaan lahayd inaad taado qoraageebaad ugu jeceshahay qora ahaan ay ugu jeceshahay run ahaantii bugaag badan ma jeclahay oo ma kala dooran karo laakiin waxa dhici karta xiisagelin ya qoraal xiisagelin haddii ay qoraal noqoto wax badan oo Soomaaliyeed iyo hablo badan oo Soomaaliyeed wax qoraa ka hela oo runtii qoraalkoodu ay soo jiito haddana run ahaantii waxaan ugu jecelahay anigu oo soo jiita oo ii dhow hanaanka farshaxanimo ee uu wax u cabiro ee uu fariintiisa u soo gudbiyo ninka da'da yar ee gabiye ee abwaankana ah qoraagana ah ee Ibraahim Ahmed Yusuf oo loo yaqaan Hawd oo degan wadankaasi Sweden ugu dambeyntii maxamed waxaan ku soo go'aanadayaa maxaa mustaqbalka maxaa soo wada buugaag dhowra ayaa maskaxdayda ka guuxaya oo aan jecelahay inaan qalinka u qaato walow aan qaarkoodna gacanta ku hayo hadda waxaa kaabiga saaran oo qalinku la halgamaya buug ka warramaya halgankii hubaysnaa ee dhaqdhaqaaqii wadaniga Soomaaliyeed ee SNM iyo markaasi waayadii aan ka mid ahaa halgankaasi anigu wixii aan u soo joogay sababihii halgankaasi ii geeyay aan ugu tallaabay waxyaabihii aan ka kasbaday aqoon waaya aragnimo farax murugo naxdin farxad iyo wax wal oo ku saabsanaa ayaamihii aan ka mid ka ahaa ururkaasi dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM diiwaan laga qorayo arrimaha maxamed ha waxa jirtay oo Jamaal Ali Xuseen uu soo saaray baa jira runtii waa buug makiinada saaran waxaa ku jira 150 sheeko oo qosol leh oo Soomaalidu waxyaabo ku kaftanta ah runtii waa buug la yaab leh murti iyo qosol iyo xigmad intaba xambaarsan dadkana wax baraya farxadna gelinaya qofka oo qosolku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caafimaadka qofka ka qayb qaata waxaan noo sheegtaa mid ka mid ah haddii aan tusaale u soo qaatay matalan anigoo buugaamka gacanta ku hayo oo ah dadka ka umurinaya Jamaal Ali Xuseen umulisooyinkooda ka mid ah buugaasi tusaale ahaan inan baa ku noolaa dalka Norway magaalada Oslo inanku wuxuu ahaa inan reer xamara deedna
reerkooda oo dan yar ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa wuxuu u roonaa oo wax u diri jiray aabihii iyo hooyadii magaalada muqdisho jooga aad bay inanka ugu ducayn jireen u jeclaayeen maalintii dambe ayaa inankii aabihii iyo hooyadii la xidhiidho wuxuu waan guursanayaa deetana oo ku farxay aabihii wuxuu ma sha Allah aaba guurso laakiin wuxuu aabo inantaan guursanayaa waa inan reer Norway odaygii wuu naxay laakiin si yar oo xigmad leh oo qosol leh ayuu inankiisa ula sheekaystay wuxuu aabo waageed xamar joogtay yaa cid inoogu dhawaa jiraankii niga yahaayeen markaasuu dee aabo waxaa cid inoogu dhawaa odaygii Sheekh Cabdilaahi markaasuu Sheekh Cabdilaahi muxuu haystay muxuu xoolo lahaa aabo miskiin buu hayo waxba ma lahayne dibi buu lahaa buuri dibi aabo dibigu muxuu suubin jiray buuri wuxuu dibigu aabo reeraha lo'da leh ee sacaha leh ayaa dibiga intay u keenaan ayuu u fuuri jiray oo u rimin jiray oo deedna wuu u dhali jiray dib ugu dhal wacna aabo weli miyaad maqashay buu yidhi reer Cabdullaahi reer Sheekh Cabdullaahi dibigoodii weylu dhalay ama weylu dhalay in reerkii loo keenay aabo ma dhicin buu yidhi weligeed ma dhicin maraan maqal uma soo joogo haddaba aabbaadna Norway dibigii reer Sheekh Xasan baad noqonaysaa buu yidhi dibigii reer Sheekh Cabdullaahi ayaad Norway u noqonaysaa isagoo dee wuxuu jeedaa inuu garanayno carruurtaad halkaa ku dhashaa ee naagta caadad ka dhashaa dibigaasi weylihii uloodaa ka dhaliyay unbuu u dhigmayaayo dee carruurta sacroonu arkayno annagu ma nihin adeeg waxibad noocaasi uu buku ku salaysan yaho waayaha hadeerta ku salaysanoo mid kale haddaan tusaale kusoo qaato oo matalan waxyaabaha kaftanka ee buga ku jira ka mid ah nin baa cirweyna wuxuu cuni jiray kiilo iyo ka badan oo raashina inan buu guursaday inantii ninkii bay u dulqaadan kari weyday way la yaabtay cirkiisii deedna way isqabteen markay isqabteen ayaa waxaa dhacday inay tawradaysiin oo kuma hayn karo cirka kuma hayn kare deedna ninkii oo inantana wuu jeclaayo yaaban oo aroosahoo baqaaxi fadhiyo oo kuududa ayaa nimay saaxiib yihiin baa u yimi oo hebel maxaa ku helay qisadii buu uga warramay qisadaas haysataa ma intaasaa ku midmaysaa warnaa gurigaaga tegayay tilmaan oo kaa gurigii buu gabadhii buu ku garaacay qaw uu ka furay salaamu calaykum assalaam walaal kiilo cuni ma jooga markaasay naxday ay tiri hoogay shawadun baa ismoodaya warkiisu suuqana waa yaallaa ninkan iyo cirkiisu iyadoo yaabanoo naxday oo qabowdoo shoogsan eedni ma joogo waxaad ku tahdaa buu yidhi markuu yimaado waxaa kuu yimi 2 kiilo cune wuxuu kugu